السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورملي حسوستا أخياري وأنكي وير هاي أيانتان هبع سنان باجرتي أو فرصة إسكيرت marka waxaan idin leenahay bal xasuus wanaagsan iyo dib u soo kabasho kadib waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo baraaro suuban. maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno xamar iyo xaaladaheeda iyo guud ahaan waddanka qaasatan waddanka isbedelada ka socdo oo dhan walba leh. hadday noqon lahayd horumar, hadday noqon lahayd guulaha waaweyn ee ciidanka qaranku soo hoynayaan, hadday noqon lahayd qurbo joogta waddanka dib ugu soo noqonayso, hadday ahaa lahayd kaabayaasha bulshada iyo infrastructureska magaalada dib u soo noqonayso, dhismayaasha quruxda badan ee dib loo dayactirayo kuwa cusub intaba, maqaayadaha iyo maxay aheeday businesska horumarkiisa soo kacayo. marka waxaan ka bilaabaynaa horta waddanka dhalinta waddanka joogto maanta waxay u baahan yihiin shaqo. dhalinta shaqo abuur ayay u baahan yihiin. shaqo abuurka marka haddii la waayo maxaa dhacaya? waxaa dhacaya in waddankii daraagis iyo balaayo iyo wax la mid ah in maxay aheeday ay dhalintii ku mashquulaan halkii ay uga mashquuli lahaayeen inay shaqaystaan, inuu mid walba mid kale ficiis la tartamo, inay guursadaan, inay horumar sameeyaan. marka taa haddii la waayo waxaa dhacday in daraagis la isticmaalo, in sharoobooyin dad dana gaara leeyihiin ay ka keenaan dabadda oo waddankii laga soo buuxiyo, in kaniiniyaal aanba soomaaliyaba ku habboonayn la keeno, in marka dhalintii laga waalo oo asoo ka dhacsan iska kaasoo agmarayaa oo wuxuu sameynayaba uu ogeyn. marka wallaahi runtii qolyaha ganacsatada waxaan dhihi lahay ilaahay inta ka cabsataan waxay aheeday kaniiniyada aad adinku maanta shilinka yarka ka raadinayso oo mustaqbalka dhalinteena Soomaaliyeed aafaynaya inaad alla dartiis waxa uga reebtoontaan oo aad maxay aheeday dhalinta mustaqbalkoodna aad ku ciyaarin. waxaa la ii sheegayay 3 gabdhood iyo 3 wiil abaa israaceen meel halkaana la tagay sidii loo waday xashiish iyo baqti iyo balaayo loo cabay waa gabar ku dhimatay. gabadhaas oo maleynaa in la dirdilay, oo maleynaa in wax kale lagu sameeyay, oo maleynaa in xoog wax looga qaadanayo, see loo siinayay maxay aheeday xashiish iyo baqti iyo sankii afka uga cabays bay nafteedu ku weysay. dhacdo aad u halisa way, dhacdo aad iyo aad u daran way. maaha waxay ku habbooneed maanta dhalinta Soomaaliyeed wax ku habboonaa maaha. markii aan taas ka soo noqdo waxaan leeyahay dawladda Xasan Sheekh dhalinta campaign-koodii waxaa ku jira in dhalinta waxay aheeday hadday noqon lahayd shaqo, in xafiisyada dawladda laga shaqaaleysiiyo, hadday ahaa lahayd xagga kale shaqo ah oo business in loo abuuro aheyd, hadday ahaa lahayd in maxay aheeday ciidankii la qoro dhalintii dhan walba. haddeer uma jeedno macnihi waxaa leeyahay kun ciidana la qorayaa, waxaa lagu saleynayaa heblow iyo hebel anikan ii qor waa isku dhamaatay. marka wax saa ku habboon maaha. dhalinta sideedaba dhalinta waddankeenu wuxuu u badan yahay maanta qolkiiba inta badan waa dhalinyaro. dhalintaa waa in shaqo abuur rasmi ah oo noloshooda ay ku kafargareeyaan oo waalidkooda waxay aheeday wax ugu qabtaan oo ay xaasas iyo waxay aheeday caruur waxay aheeday family samaystaan. wax saas loo baahan yahay waa maanta.
waxaan leenahay dawladda maanta jirta waa inay dhalinta say hore ugu sheegeenba inay dhalinta waxay aheeday siiyaan fursad fiican waxaan maqlaynay xasan markii la doortay wixii koowaad uu ka dhawaajiyay waxay ahayd dhalinta waxaan u sameynaynaa shaqo abuur lacagaa la qaybinayaa dadka looga faa'iideynaya ilaa hadda ma aragno waxaan maqlaynaa un 200 oo shaqaalaa la qaatay I don't know wax qaatay iyo waxay aheeday ma u malaynayo micnihi waxa tee competition loo galay oo tartan loo gala ma hebeloo qortay iyo damajadiida qortay iyo UDP qortay balle ma how long anagu goormee jaamacada dhameyn marra jaamacada dhameyn ma hayna ilaa hadda ya shahaadooyinkii qalalna hayna maanta qof attachment oo aad soo apply garee ku dhahay malaha wiilkayga ii geli iyo kan maahan xisbigana ka daa'iyo wax la mid ah socdo oo soo uma baahna dhalintu in xisbi lagu xiro uma baahna dhalintu in 4.5 lagu xiro uma baahna dhalintu in la yiraahdo kana ii dhow marka waxaan dhihi lahayn dawladda waa inay qaadataa mas'uuliyadeeda sidoo kale waxaan bogaadinayaa dagaalka socda inta badan Galgaduud iyo Hiiraan iyo Shabeellooyinka dhankaas wax fiican bay ka qabteen ciidanku runtii aad arrin bogaadin u leh waaye waxaan u maleynayaa hadda haddii nimanka ayaga waddanka waxay aheeday laga nadiifi lahay in horumar iyo baraaro iyo barwaaqo Soomaali ay ku tilaabsan lahayd waa arrin aad ka dhalinyaro ahaan aan u bogaadinayno marka intaasaan ku soo koobaynaa maanta mowduuceena waxaan leenahay dhalinyaro waxay aheeday waddankiina u heeliya walaalkaaga daroogada iyo waxa cabaya nolosha ka dhacaya saameynta familkaaga saameynta ku yeelanaya inaad gacanta ka qabato oo aad waxaan ka joog dhahdo waaye